أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوada janaalka Salika maanta waxaa diiradda saaran presenti perfect tense oo ah tenniska lixaad ariga present waxaa perfect waa dhab ama xaqiiqsi oo taqaano tenniskana waa dhacday tenniskan sidaan ognahay wuxuu saameyn ku leeyahay tenniska lixaad iyo tenniska sideedaad laakiin labadooda sideedaad saddexaad waxay kaga duwan yahay tahay time hadduu imaado ama waqti meesha lagu muujiyo meesha waxaa iman si toos u noqonaysa markaas waa tenniska lixaad kasoo kaga duwan waxa laakiin si aad iskaga eg marka lixaadka waxaa si zaaid iskaga eg saddexaadkii sideedaad afka Soomaaliga laakiin qoraalkii kala duwanaanayaan tenniskan sidoo kale isna wuxuu ka hadlaa waa fil tagay waa marka ereyada siist waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which kaasoo has just kaasoo hadda alamkaas finished la dhameeyay or ama complete ama la dhameystiray which kaasoo has just finished taasoo hadda dhamaaday or ama complete ama la dhameystiray rulka sharciga wuxuu noqonayaa marka subject plus has plus have plus just plus pp plus object meeshan waxaan soo raacay marka suggest ah oo hadda wax time inuu muujinayo I we you is they waxay qaataan have ay qaataan halka she it ay qaataan has for example ugu horeeya I have just killed 2 mice aniga hadda waxaan dilay laba dool ayaan dilay ala markaas meesha waxaa inoo muuqda marka waa just time ka marka just hadii laga bixiyo I have killed 2 mice waxaan dilay laba dool saddexaad waxaan ku dhigaa I killed 2 mice waxaan dilay laba dool afka Soomaaliga isku mid laakiin qoraalka kala duwan marka just hadii laga bixiyo waxayna qana marka halka just imaado waa tennis lixaad sida toos u noqonaa I have just killed 2 mice aniga hadda waxaan dilay laba dool we anagu have just told story aniga hadda waxayna sheegnay ala markaasi waxaan sheegnay ala markaas sheeko ayaan sheegnay iyagu have just walked iyaga hadda iyo socdeen ala markaasi waxaan walked waxay ka shaqeeyeen iyagu have just walked iyaga hadda ay shaqeeyeen sentence ala markaas jumlad hadda ay ka shaqeeyeen you have just learned adiga hadda waxaad baratay English ala markaas English ayaa baratay iyadu has just taken iyada hadda waxay qaadatay maashirta ala markaas goonadii maashirta ala markaas shaatigii ay qaadatay iyadu has just taken maashirta iyada hadda waxay qaadatay shaatigeega he asagu has just written si hadda wuxuu qoray your lesson ashirka hadda ayuu ku qoray he asagu has just written your lesson ashirka hadda wuxuu qoray ala markaas ashirkaaga iyadu has just searched iyada hadda waxay raadisay ala markaas onion ala markaas basasha for example tusaale ala markaas I have cured a man anigu waxaan daawiyay ala markaas nin statement waa iska cad ah meesha waxaa noqon markaas afar soo bixiso have I cured a man aniga nin miyaan daawiyay I have not cured a man aniga ma aanan daawinin nin ala markaas waxaan noqon markaas waa negative situation ka aniga negative ayaan noqon I have not cured a man aniga ma daawinin nin have not I cured a man aniga nin ma daawinin miya okay time maxaa markaas time ku ala markaas waxaa kamid ah kuwan soo socda express waxaa lagu muujiyaa markaas already just recently yet ever and never I have already killed the man aniga mar hore ayaan dilay ala markaasi ninka waxaa lagu sheegay markaas in qof mar hore la dilay waxaa la markaas iyadoo has told me waxay sheegtay her love already iyadoo mar hore ay sheegtay ala markaasi okay already waxaa kan kartaa ama waxaa dambaysin kartaa markaasi you have just denied my pen adiga hadda waxaad iin kartaa qalinkeyga I have joined the school recently anigu waxaan ku soo biiray iskuulkani dhawaanahani I have never seen you before anigu weligeyga kumaan arkin meesha ku jira markaas waa never before time ka have you ever kissed a girl adigu weligaaga ma shumisay ala markaas gabar okay yadna waxaa markaas maxaa lagu sharxaa markaas yadku afka Soomaaliga waa welito is often used badana iyaga waxaa loo isticmaalaa for negative diidmo ayaa loo isticmaalaa and negative question ayaa loo isticmaalaa waa tennis lixaad u socdaa she has not cooked iyadu maysan karinin cuntada the food ala markaasi yet iyadu weli ma aysan karin ala markaas cuntada or ama waxaa dhici kartaa she has not cooked yet the food iyada weli ma aysan karinin cuntada ama verbka waxaa ka hormarsin kartaa objectiga waa ka hormarsin kartaa ama objectiga waa ku xijin kartaa the food waa ka hormarsin kartaa and the food waana ka dambaysin kartaa marka iyadoo negative kan fiirina markaas negative questionka have not you yet cried adiga weli ma oonin miya ala markaas have not you yet cried adiga weli ma oonin miya ama waxay noqon kartaa have not you cried yet waana hormarsin kartaa verbka hormarsin kartaa objectiga hormarsin kartaa
ama waxaad ku horumarsiin kartaa waxaa kusoo horumarsiin kartaa ama ka dambeysiin kartaa yadka waxaa ku dambeysiin kartaa objectiga ama objectiga intaa qoran kor asaa yad dhehe kabacdi waxaa ku xijinaya markaasi objectiga halkaas waxaan ogtahay iska lixaad oo present perfectiga waxaana u xigi doona sida idin muuqata present perfect continuous tense oo ah tense toddobaad insha Allah fadlan hadii ku cusub channelka subscribe inoo saar asxaabtana sii gaarsii gabalka sii fur sidoo walba waxay kusoo gaaraan mahadsanidin